Waxaan ka qayb galay ku dhawaad 100 dagaal ama wax la mid ah. Mana jiro meel hal taako oo jirkeyga ka mid ah oo aan lahayn dhaawac seef lagu jaray, fallaar lagu dhuftay ama waran lagu muday. Haddana maanta waxaan ku dhimanayaa sariirtayda, geeri dabiici ah sida geel duq ah oo kale. Ilaahay ha ka yeelo indhaha fulayga kuwa aan weligood seexan. Waa oraax caan ah oo uu yiri geeridiisi ka hor mid ka mid ah fardooleydii Islaamka, libaaxii goobaha dagaalka, seeftii eebbe ee galka ka baxsaneed, sayidkii, imaamkii iyo amiirkii weynaa ee mujaahidiintii muslimiinta, Khalid bin al-Walid bin al-Mughira bin Abdullahi bin Umar bin Maqsuum, seef ka mid ah seefaha eebbe ee uu ka bixiyay galkeeda si ay ula dagaalanto mushrikiinta. Ku soo dhawaada taariikh nololeedka shakhsiyadda sharafta badan ee Khalid bin al-Walid, Allah ka raali noqdee. Khalid bin al-Walid, Allah ka raali noqdee, wuxuu ka mid ahaa geesiyaashii iyo hogaamiyeyaashii reer Quraysh ee Maka ka hor intaanu islaamka qaadan. Wuxuu ahaa nin dagaalyahan ah oo aad u xeel dheer. Wuxuu door weyn ku lahaa dagaallo ay Quraysh la galeen muslimiinta, gaar ahaan dagaalkii Uhud. Khalid bin al-Walid, Allah ka raali noqdee, wuxuu islaamka qaatay dabayaaqadii bishii Safar sanadkii 8 ee Hijrada, kadib heshiiskii Xudaybiyah ka hor furashadii Maka. Arrintani waxay dhacday markii uu ogaaday in nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu asxaabtiisa weydiiyey aawe Khalid bin al-Walid markii uu Maka u yimid inuu guto cumradii qada. Markii warkan uu gaaray Khalid, waxa uu dareemay qadarin iyo ixtiraam iyo in nabigu si gaar ah u xuso isaga. Inkastoo uu weli ka tirsanaa sabkii mushrikiinta, waxay tusisay in aan loo arag cadow la nacay, balse loo arko nin leh karti iyo qiimo gaar ah. Khalid wuxuu go'aansaday inuu si qarsoodi ah uga baxo magaalada Maka, isagoo u socdaalay magaalada Madiina. Safarkiisiina waxaa ku wehelinayay oo la socday 2 nin oo kale oo caan ahaa, laguna magacaabi jiray Umar ibn al-Aas iyo Uthman ibn Talha. Markii ay Madiina gaareen, waxay u tageen nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxayna ku dhawaaqeen shahaadada. Nabigu aad buu ugu farxay islaamnimadooda, wuxuuna ku yiri Khalid, waan ogaa in nin caqli iyo karti leh sidaada oo kale uusan ka maqnaan doonin xaqa. Isla markiiba wuxuu noqday mid ka mid ah saraakiishii ugu muhiimsanaa muslimiinta dagaalkii Mu'tah. Inkastoo hogaamiyeyaashii hore la dilay, Khalid ayaa hoggaanka la wareegay, wuxuuna si xeelad leh ciidanka uga badbaadiyay burbur xooggan. Halkaas ayaana loogu bixiyay naanaysta ah Sayfullah, seeftii Alle. Khalid bin al-Walid, oo si weyn loogu yaqaanay naanaysta seeftii Alle, wuxuu leeyahay meel sare oo taariikhda islaamka ah sababo la xiriira guulihiisii military ee aan laga adkaan. Guulahaas badankood looma aanan nisbayn oo keliya xeeladiisa dagaal iyo kartidiisa hogaamineed, balse waxaa loo arkayay inay ahaayeen gargaar iyo idanka Alle. Dadkii la noolaa xilligiisa waxay aqoonsanayeen in guulihiisu ahaayeen muuqaallo ka turjumaya taageero rabbaani ah. Markii Khalid bin al-Walid ku biiray safka mu'miniinta, wuxuu helay ujeedo sharaf leh oo uu u dagaalamo. Muslimiintuna waxay heleen haliyey ciidan oo dhab ah, xeeldheere dagaal iyo hogaamiye geesi ah. Dagaalkii ugu horreeyay ee uu Khalid guul muuqata ka soo hooyay wuxuu ahaa dagaalkii Rum, oo ahaa kulankii ugu horreeyay ee muslimiintu si toos ah ula kulmaan ciidankii boqortooyada Roomaanka bari, kana dhacay waqooyiga jasiiradda Carabta. Sababtii dagaalku waxay ahayd in maamulkii Roomaanka ee dhulka Shaam ay dileen ergey iyo dad qaatay diinta sharfan ee Islaamka, taasoo muujisay cadaawad ka dhan ah diinta Islaamka iyo mabda'a xorriyadda caqiidada, arrin Islaamku u arko mid ka mid ah qiyamka ugu sarreeya ee la difaaco. Maadaama dagaalku ahaa mid khatar badan, nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu magacaabay 3 hogaamiye oo isku xiga, si haddii mid uu qaato shahaadada kan kale oo u qabto hoggaanka. Tirada ciidankii Roomaanku aad bay uga badneeteen muslimiinta, balse muslimiintu kama labalabayn inay dagaalka galaan, iyagoo rajaynayay ajar iyo raalli ahaanshaha Alle. Intii lagu jiray dagaalka, 3dii hogaamiye ee la magacaabay waxay noqdeen kuwo shahiida, calankiina wuxuu ku sigtay inuu dhulka ku dhaco. Markaas ayuu Thaabit ibn al-Arqam ku orday si uu u badbaadiyo calanka, wuxuuna u geeyay Khalid bin al-Walid, isagoo ku yiri waxaan kugu wareejiyay calanka Khalidow, maadaama uu uga aqoon badan yahay xeeladaha dagaalka. Bilowgii Khalid wuu diiday, isagoo dareemay in Thaabit uu ka mudan yahay hoggaanka sababo la xiriira da'diisa iyo adeegiisii hore ee Islaamka. Laakiin markii Thaabit ku adkaystay, askartiina si wadajir ah ugu raaceen, ayuu Khalid aqbalay hoggaanka dagaalka. Xaaladda dagaalku ma ahayn mid u roon muslimiinta. Tirada badan ee kufaarta Roomaanka iyo dhimashada 3dii hogaamiye ee nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee magacaabay ayaa ka dhigtay mid aad u adag. Laakiin hoggaamintii Khalid ayaa markaas bilaabatay inay beddesho jihada dagaalka. Inkasta oo xaaladdu ahayd mid aad u adag,
Khaalid wuxuu dib u habeeyay safafka ciidanka muslimiinta, wuxuu isku bedelay garbaha midig ilaa iyo bidix, wuxuuna qayb ka mid ah ciidankii safka dambe hore u soo geliyay dagaalka si uu cabsi ugu abuuro qulubta cadowga mushrikiinta. Ciidamadii kufaartu waxay u maleeyeen in ciidamo cusub oo gurmad ah u yimaadeen muslimiinta. Qorshe xeel dheer iyo dagaal geesinimo leh awgiis, Khaalid wuxuu ku guuleystay inuu jibiyo safafka cadowga mushrikiinta kana sameeyo meelo bannaan, taas oo suuro gelisay muslimiintu inay si nabad ah uga baxaan goobta dagaalka. Khaalid bin al-Waliid Allaha ka raali noqdee wuxuu taariikhda islaamka kaga tagay raad aan tirmi doonin. Noloshiisu waxay ahayd mid ka turjunta isbeddel weyn, nin markii hore ka soo horjeeday islaamka, balse markii uu xaqa gartay ka mid noqday mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee difaaca diinta. Guulihiisa dagaal ma ahayn oo keliya xeelad iyo karti ciidan, balse waxay ku dhisnaayeen iimaan, go'aan adag iyo kalsooni uu ku qabay in guushu ka timaado Allah subxaanahu wa tacaala. Dagaalkii Mu'tah iyo kuwii xigay waxay muujiyeen geesinimo, deganaansho maskaxeed iyo awood hogaamineed oo sare. Khaalid bin al-Waliid Allaha ka raali noqdee wuxuu geeriyooday sanadkii 22aad ee hijrada, xilligii khilaafada Umar ibn al-Khattab. Wuxuu ku geeriyooday magaalo ka mid ah dhulka Shaam. Khaalid waxa uu u geeriyooday si dabiici ah, inkasta oo uu ka qayb galay dagaallo dhowr ah oo aad u tiro badan. Waxaa laga wariyay inuu yiri markii uu sariirta geerida saarnaa, ma jiro meel jirkayga ka mid ah oo aan ku lahayn nabar ka yimid waran, fallaar ama seef. Haddana waxaan ku dhimanayaa sariir sida geel duq ah. waxaana halkaas ku eg mowduuceena aan uga hadlaynay seeftii Alle, hogaamiyihii geesiga ahaa, noloshii sarfaneed ee Khaalid bin al-Waliid al-Mughira, Allaha ka raali noqdee.